Akademiyada Hagaaga ee Hogaamintii Horumarinta ayaa maanta xaflad qalinjebin ah u sameysay dufcadii koowaad ee dhamaysatay barnaamijka xirfadaha guusha nolosha. Dhalinyarada ka qalinjebisay barnaamijka xirfadaha guusha nolosha waxay qaateen tababar aad heerkiisa u sarreeyo oo isbedel weyn ku sameeyay aragtida noloshooda. Xafladda qalinjebinta waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan hoggaanka Akademiyada Hagaaga, marti sharaf kala duwan, ardaydii dhamaysatay barnaamijka xirfadaha guusha nolosha iyo waalidiina. Waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha Akademiyada Hagaaga ahna tababaraha xirfadaha guusha nolosha Ustaad Mascuud Weheliye. 2013 markii aan dalka ku soo laabtay ayaa waxaan aad iyo aad u indheeyay wadanka Soomaaliya xaaladiisa, dhalinyaradu sidii ku sugan yihiin, waxbarashada gaar ahaan. waxaan marka aad iyo aad ugala murugooda dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo kumanaan ah oo waxaan arkay runtii aad iyo aad u murugaysan, qaarkood ay tahriibeen, badaha ay ku la'deen, qaarkood kale darbiyada ay iska fadhiyaan, qaar uu niyad jabay, dhibaato fara badan ay ku dhacday. waxaan aad iyo aad marka aan baaritaan ugu sameeyay maxaa sababaya inay dhalinyaradu ay saas rajabeelkaas ay abuurmaan oo qaarkood ay tahriibaan, dhibaatada maaragta keenaysa maxay tahay. markaan isku soo duuduubay oo arintaas aan aad iyo aad u baaray waxaan ogaaday sababta ugu muhiimsan oo dhalinyaradu ay u tahriibayaan oo darbiyada ay u fadhiyaan oo rajabeelka ay u yihiin in ay tahay horumarin la'aanta hibooyinka Ilaahay ku manaysta subxaanahu wa ta'ala. yani qof kastoo dhalinyaro ah wuxuu leeyahay hibo, ma jiro qof gorof ah maana ma jiro. qof kasta Ilaahay wuxuu ku abuuray hibo ayuu ku abuuray, laakiin mararka qaarkood dhalinyaradu ma fahamsana, isma hormariyaan, ma qaataan xirfadaha loogu talagalay inay hibooyinkooda ku hormariyaan, ma is oga. طبعا dhalinyaradi hadda qaadanaysa xirfadaha guusha nolosha dad badan oo kamida waxay ku soo baxeen inay noqdaan dad ku fiican writing skills iyo qoraalka, dad ku fiican fasaaxada, dad ku fiican, laakiin dhalinyarada kale ee fursadaas aan helin runtii ma dareensana hibooyinkaas waaweyn oo Ilaahay siiyo subxaanahu wa ta'ala, mana fahamsana. sidaas darteeda ayaa Akademiyada Hagaag ee Hogaaminta iyo Horumarinta loo aasaasay inay qayb weyn ka qaadato soo saarista jiilal cusub oo runtii awood iyo karti u leh dalkooda iyo dadkooda inay horumariyaan. Akademiyada Hagaag waxay hiigsanaysaa in 30 sano ee soo socota ay soo saarto 100,000 oo dhalinyaro ah. dhalinyaradaas oo leh xirfado hogaamineed iyo akhlaaq wanaagsan oo aan rajaynayo inay saldhig u noqon doonaan badbaadada bulshada Soomaaliyeed. aan rajaynayo insha Allah ta'ala ay u noqon doonaan arintaas. marka hadii dad fara badan oo dhalinyaro ah oo wanaagsan runtii ay soo baxaan, waxay qayb weyn ka noqon doonaan inay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan, ay qayb ka noqon doonaan. marka ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan, Ilaahay wuxuu ku hibeeyay hibe ayuu ku siiyay. sidaas darteed hibada Ilaahay ku siiyay ka faa'iideyso. waxaa tagtaa xarumaha loogu talagalay inay hormariyaan hibooyinka Ilaahay insaanka uu ku hibeeyay. adiga waxaad leedahay hibo fara badan ayaa Ilaahay kugu abuuray, sida hormari hibadaada si aad hogaamiye u noqoto, bedel naftaada si dunida inteeda kale aad u bedesho. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa kaloo kalimado goobta ka jeediyay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigto Akademiyada Hagaaga. qofka ibni aadamka waxa uu ku dadaalo inuu noqon karo, waxa uu doonayana inuu noqon karo. qofka ibni aadamka inaku ismaynaan hagaajinin, inaka Ilaahay baa ina abuuray. Ilaahay markuu ina abuuray sida quraankiisa uu ku sheegay, awood aad u far badan buu Ilaahay ina geliyay. awoodu Ilaahay ina geliyay xayawaanka ama noolaha adduunka ku nool oo dhan inaku kuwa ugu waaweyn manihin. maroodiga inaga weyn, gariga inaga weyn, geela inaga weyn. maadaama oo inaku aynaan ahayn noolaha adduunka ugu weyn, laakiin inaku waxaynu nahay noolaha keliya ee caqliga leh. waxaan anigu markaa aan bogaadin lahaa in Akademiyada Hagaag ay imaadaan dadka iminka role modelka ummadda u ah inay soo maraan ama standard u noqdo in ay meesha soo maraan. way waad arkayseen dadkii meesha soo istaagay waxay ku hadleen maalin dhow Ustaad Mascuud Khayr Allah si wuxuu yiri bal ardaydan evaluation ku samee qiimeen. markaan imid aniga yaabay isla yaabay waxaan iri dadkan dad qiimeen lagu sameyn karo, waayo qofka ugu horeeyay waxaan siiyay full marks, kii labaad baan full, markaan 3 si marayaan ku iriniyo qiimeen meeshan noogama taala inaan iska laabanaa noo fiican. waayo nin walba ninka ka dambeeya
ayuu maaragtay kasii fiicnaa. maxamed cabdulaahi saciid oo ka mid ah ardaydii qalinjibisay ayaa isagana dareenkiisa cabiray sidoo kalena dhalinyarada ku booriyey inay horumariyaan hibooyinka ilaahay ku maneystay. aniga ahaanteyda waxaa ku jira ardayda xirfadaha guusha nolosha qaadatay. marka xirfadaha guusha nolosha qaatay waxaa ogaaday fursado badan oo igu hareereysan inay jiraan laakiin marka hore aan ogeyn. waxaa ka mid ah xirfad la dhaho effective public relation, xirfadda ugu saameynta badneed qaatay maxaa yeelay waxaa ogaaday qof walba intuu yaqaano inta qofka sii taqaano in adigana ay ku taqaano, adigana opportunity ay ku tahay. sidoo kaleeto waxyaalaha ogaanaysa waxaa ka mid ah qofka nafsad ahaantiisa markuu straining gareeyo oo wax badan dabcan uu fishin badan aragti badan oo ayaa usoo ifaya oo wax badan oo waxyaalo badan dhibaatooyin badan oo qof ku hareereysnaa oo runtii u arkay wax aan waxba laga qaban karin ayaa wuxuu noqonayaa wax si fudud uu ku maareeyo. dhibaatooyin badan oo xagga isdhahay maxalli kartid wuxuu baahay experts in runtii la tashatid ayaa ii fududaatay inaan maskax ahaan aan xalliyo. ugu dambeyntii waxaa hadal qiiro leh goobta ka jeediyey mid ka mid ah waalidiinta kasoo qayb galay xafladda qalinjabinta xirfadaha guusha nolosha. waxaan dhalay maxamed cabdulaahi maasha allah, jaamacad uu isoo dhiganayay, iskuul buu isoo dhiganayay, waxyaabo badan uu isoo dhiganayay. intaas dhiirigelinta inta hadda xirfadaha guusha nolosha uu bilaabay, dhiirigelintii iyo intaan ka arkay waa waxaan la soo koobi karin. macallin aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa. asaga keliyana kuma koobna, hadda weligay aniga seminaaro waa tegi jiray, meelo waa tegi jiray, laakiin aan qof mikrafoon qaato dad soo istaago mayna asaga iska daay annaga dhiirigelinta soo galna hadda.